isbuucii la soo dhaafay ayaa isbahaysi cusub oo ka soo horjeeda dawladda ku meel gaarka iyo Itoobiya oo ay xulafo yihiin lagaga dhawaaqay caasimadda Eritrea ee Asmara iyadoo dawladda Eritrea ay taageersan tahay isbahaysigan cusub. wariyaha VOA Ali Sharru ayaa warbixintan inooga soo dirtay Muqdisho. Maxamuud Axmed Cabdullaahi ayaa soo akhriyay. VOA ayaa waxaa soo gaadhay in isbahaysi cusub oo aan weli magac loo bixin lagaga dhawaaqay magaalada Asmara. Isbahaysigan oo lagu sameeyay shir Asmara lagu qabtay dabayaaqadii bishii May ayaa ka soo horjeeda dawladda ku meel gaarka iyo taageerada weyn ee Itoobiya. Waxa shirka qabtay dawladda Eritrea sida wararka lagu sheegay oo bogagga internetyada Soomaalida lagu soo daabacay. Madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki ayaa ku tilmaamay kulankaas mid midayn ujeedadiisu ahayd. isbahaysigan ayaa sida la sheegay waxa ku bahoobay 4 kooxood oo kala ah midowgii maxkamadaha islaamka, ururka mucaaradka ee ONLF, dhaqdhaqaaqa xoreynta oromada OLF iyo xubno baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya horey uga tirsanaan jiray. wararku waxa ay intaas ku dareen in gudoomiyihii fulinta ee maxkamadaha islaamiga Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uga qayb galay shirka maxkamadaha, halka ururka ONLF uu uga qayb galay General Maxamed Umar Ismaan. sidoo kale Xuseen Caydiid oo hore dawladda ku meel gaarka uga tirsanaan jiray ayaa isna uga qayb galay kooxda hadda la magac baxday baarlamaanka xorta ah ee Soomaaliya. xog ballaaran lagama helin shirkaas. dhanka kale dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya midna wax faalla kama bixin kulanka Asmara iyo waxyaabihii ka soo baxay midna. sida aad maqlayseen dhageystayaal, ururadaasi lagu sheegay inay dhidbeen isbahaysigaasi cusub ayaa urur ka mid ah ururadaasi oo la yiraahdo ONLF waxa uu diiday inuu wax ka ogayahay isbahaysigaasi. haddaba Maxamed Xaaji Xuseen ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay gudoomiyaha ururka ONLF Maxamed Umar Ismaan, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa uu kala socdo arrintaasi. arrintaas VOA baa laga maqlay meel ay ka keentay. runtii waxaa fiicnaan lahayd inay iyagu sheegto meesha ka keentay arrintaas. waxa la wax ka jira ama aanu ka ognahay ururka aad sheegteen ee oromada iyo ONLF iyo Soomaaliya ay isku bahaysteen. waxa la wax ka jira ma jiraan. waa wuxuu laga maqlay idaacadihiina midda Ingiriiska iyo idinka oo laydinka maqla weeye. waaxda afka Ingiriisiga ee VOA ay sheegtay in arrintaasi jirto, weliba adiga lagu doortay inaad hogaamiso dhinaca dagaalka oo madax u noqoto xagga dagaalgelinta. arrintaasi waa arrin runtii been abuur oo sal iyo raad midna lahayn. cid aanu arrintaas ka wada hadalay ma jiro. nidaamka iyagu waa sidii hore. ururka ONLF la yidhaahdo oo la dagaalamayo dawladda Itoobiya oo gobonnimo doon ah oo inuu xuquuqdiisa helo raba, shacbigana in afti laga qaado raba. ururkaasaa jira. ma jiro wax kale oo urur kale oo mataqaana uu taxaaluf la sameeyo oo kuwaa la sheegayaa. ra-iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarkiina waxa uu xaqiijiyey in arrintaasi wax ka jirto oo weliba aad wadaan shirqool lagaga soo horjeedo shirka dib u heshiisiinta iyo dawladda ku meel gaarka. taageedina run kuma uuna sheegin. waxa saas oo arrintaa u hayana ma jiro. VOA arrintaa run kuma ayna sheegin. waxa saas oo ay u haysaana ma jirto. in ay Maxamed Cumar laga dhiga gaashaandhigga iyo in cid kale laga dhiga midna waxaasoo dhan waxa la wax ka jira meel waxaasoo dhan waa wax been abuura, waxba kama jiraan. xiriirka aad la leedihiin muxuu yahay kooxaha Soomaalida iyaguna Eritrea jooga oo la leeyahay labadiinaba way idin caawinaysaa dawladda Eritrea? xiriirkiina muxuu yahay? xiriirka naga dhaxeeya oo midka dhiigga iyo nasabka waxaan ahayn oo naga dhaxeeya ma jiro. hal shay baa naga dhaxayn karaya. waxa weeye waa Itoobiya iyo dhaqankeeda iyo siyaasadeeda cadaawadda ee dhulballaarsiga nacaybka siyaasadaasaa naga dhaxeeya. gudoomiye maxaad diidi karaa la odhan karaa haddaad idinkiina dawladda Itoobiya ka soo horjeedaan iyaguna ay ka soo horjeedaan taa sheegtana idinka dhaxayso inaad si wada jir ah u qabataan? runtii waxaa diidahaya waxa weeye iyagu waa dawlad xor ah. dawladda Soomaaliyeed xor ah weeye oo hadda lagu duulay weeye. iyagu marka dhulkoodu waa dhul xor ah. dawlad calan la weeye. United Nations iyo golay adduunka oo dhan ku wada jira. marka qadiyadoodu waa qadiyadaas xadgudubka ee dawladda Itoobiya ay ku soo xadgudubtay. annaguna ummad waxaanu nahay shacbi la gumaysto. gumaysigaasaanu inaanu ka xorowno aanu doonaynaa. marka waa laba arrimood oo runtii aan isku program iyo isku barnaamij aan noqon karaynin. laakiin wax xiriira ma lidin xagga dhinaca dagaalka iyo wada qabsiga ka soo horjeedka Itoobiya? wax xiriir ah oo military ama mid siyaasadeed ah oo aanu leenahay ma jiraan. gudoomiye waxaa jirtay inay imika dawladda Itoobiya wado qorshe cusub oo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca ciidanka ururkiina lagula dagaalamo. waxaana la sheegay 5 qof oo aad ka mid tahay in maxkamadda la raasanayo oo xagga argagixisada. sidoo aragtaa iyada? Itoobiya waxyaabo fara badan bay hadda ka hor wax badan bay nala raadsan. anaga nalaysaamay adduunka fikrad xun naga siiso. waxyaabahaas iyo waxyaabo ka badan waabanu ka sugayna mar haddaanu islaynayno. marka cabsi
cabsi intee labaad oga qabtaa inay waxyeello idinka soo gaadho arrimaha cusub ay doonayaan inay wadamo fara badan oo caalamiga ah oo markaa xafiisyo aad ku leediin ay la kaashadaan Ethiopia hadday